ka guulayso sonkorta dawo la'aan muhiim ma ahan nooca sonkortaada laakiin ficiladaada ayaa muhiim ah. 1. Go'aanso maamulidda iyo ka guulaysiga sonkorta. Mar waliba ku xirnaaw dhaqaatiirta iyo dadka aqoonta u leh kaadi macaanka. Weydiiso caawimaad mar waliba oo aad dareento xaalad adag. 2. Dooro cunto caafimaad leh iyo miisaan caafimaad qaba. Dhimidda 7% miisaankaaga haddii aad cayilan tahay waxa ay qayb ka qaadanaysaa xadaynta xaddiga sonkorta. Sidoo kale cunista cunto caafimaad qabta sida qudaarta, raashinka qolofta leh, digirta, qamadiga iyo kuwa la midka ah waxa ay kontarooli karaan xaddiga sonkorta dhiigaaga iyo yareynta caabuqa caloosha. 3. Samee maalin waliba almiito joogto ah. Almiito si joogto ah loo sameeyo waxay ka caawinaysaa ama qofka ka caawinaysaa ka hortagga sonkor ku dhici lahayd ama waxa ay hoos u dhigaysaa dhibaatada sonkorta waxaana suuragalaya in la maamulo sonkorta. 4. Waqti u samee baaritaano jireed iyo mid arag ee caafimaad qabka jirka. La kulan takhtarka sanadkiiba mar. Xilliga takhtarka la kulmayo waxa uu raadin doonaa dhibaatooyin ay sonkorta u geysatay jirka sida aragga iyo neerfaha. 5. Ka taxadir lugahaaga. Maalin waliba ku dhaq cagahaaga biyo qandaca ah kadib qalaji kareemna mari. Maalin walba ka taxadir nabar ku dhaca cagtaada oo hadhow bogsiimadiisu adkaato. Haddii nabar ku yimaado si dhaqsi ah kula xiriir takhtarkaaga. Xiro kabo daboolan iyo sigisaan ama sharabaad. 6. Ilaali mar waliba cadaadiska dhiigaaga iyo cabirka kolestaroolkaaga. Almiito si joogto ah loo sameeyo iyo cunto caafimaad qabta oo la isticmaalo ayaa mar waliba ilaaliya kuwan laakiin haddana waa la hubiyaa. 7. Ilaali nadaafadda ilkahaaga iyo ciridkaaga. Sonkortu waxa ay keentaa caabuq daran oo ku dhaca ciridka haddii aan la nadiifin waa uu daba dheeraadaa sababaana burburdaanka ah iyo barar afka ah oo nabro leh. 8. Haddii aad sigaar cabto ama tubaako jooji. Dadka qaba sonkorta ee haddana caba sigaarka waxay u nugul yihiin xanuunada wadnaha. 9. Haddii aad buuq ku jirto si dhab ah u qaado xaaladan. Waa xaalad halis ku ah qofka qaba sonkorta. Marka uu jirkaagu buuq ku jiro waxa uu soo daayaa dheecaano kuwa oo yareeya maadada insulinka ee sonkorta dhiigga ka yareysa. Taasina waxa ay sameyn kartaa in sonkortii ku badato dhiigaaga sidaana xaaladdu ku xumaato.